السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحنا جنالك مركلة سود وهذا أدي هذا وما هتسنتهين muuqaal kan waxaan rabaa inaan idinku la wadaago dadka Soomaalida ah ee green card ka haysta isla markaana marka ay green card ka helaan isla markiiba inta ay laabtaan wadankii ay ku laabtaan soo jooga wax ka badan 6 bilood amaba sanad soo jooga arintaasi hadda kadib ma jiri doonta waxana aan idinku la wadaagayaa arintan haweeneydan waa haweeney ayeeye ah oo wadanka India asal ahaan ka timid magaceedu waxa la yiraahdaa Finketa Fasamseti waa 59 jir sanadkii 1999 ayay wadanka visa ku timid kadibna green card ayaa la sii ku dhawaad muddo 30 sano ka badan ayay wadanka Mareykanka ay ku nooleed haweeneydan sidoo kale waa ay shaqeysaa waa macallimad caruurta baahiyaha gaarka qabo ayay waxbartaa gobolka North Carolina guri ayay leedahay canshuur ayay bixisaa wax dambiyana ma aysan lahayn xitaa traffic ticket ma aysan lahayn haweeneydan marka dalkeeda India asal ahaan ka timid ayaa sanadkii 2022 ay u safartay si aabaheed oo xanuunsanaa oo daa ay uga taxadirto marka xil intii ay maqneed cudurkii coronavirus ka ayaa dhacay marka waqtigii ay soo laaban lahayd waxa ay ku darsatay bil marka waxa ay ku soo laabatay Mareykanka bishii February ee sanadkii 2023 7 bilood ayay maqneed qofka green card ka haysta Mareykanka 6 bilood ka badan hadii uu ka maqnaado marka uu soo laabanayo immigrationku su'aalo ay weydiin karaan reinspection ayaa lagu sameeyaa wax la leeyahay waxa daayacday deganaashadaadii rasmiga ah ee wadanka Mareykanka aad ku haysatay marka qofku 6 bilood ka badan hadii uu maqnaado immigrationku xaq ayay u leeyihiin inay wax ka weydiiyaan sababta uu 6 bilood ka badan wadanka uga maqnaa oo green cardkiisa maadaama ay tahay inuu wadanka uu deganaado markaas kadib haweeneydii waxa la yiri waa daayacday deganaashadii rasmiga ah maadaama 6 bilood ka badan wadanka aad ka maqnayd sharciga immigrationkana sidaas ayuu dhigayaa 180 maalmood ka badan qofku kuma maqnaan karo marka maxkamad ayuu kiiskeedii tagay garsoore ayaana waxa uu diiday 19 May ee sanadkii 2023 ayuu kiiskeedii dismiss ka dhigay oo baabi'iyay maxaa yeelay dawladdu waqtigii loogu talagalay ayaa cadeymihii ay ku soo bandhigi waysay marka waxa jirtay in ICE ay check in sameeynaysa haweeneydan markasto marka 12 bishan hadda aynu ku jirnay Agosto ayaa waxa ay lahayd in ICE ay check in kii loogu talagalay ay iska xaadiriso markii ay tagtay marka waa la xiray isla markaana hadda waxa ay ku xiran tahay xabsi ku yaala Georgia marka halka check in ay ka sameeynaysa waa magaalada Charlotte ee gobolka North Carolina halkaasi oo ay deganeed qareenkeeda marka waxa uu maxkamadda ka codsaday bal in cadeyso sababta loo xiray maadaama kiiskeedii dhinaca green card-ka horay maxkamadii ay meesha uga saartay isla markaana waxa hadda garsoore uu ka dalbaday dawladda maadaama haweeneydan ay macaan qabto isla markaana daawooyin joogto ay u baahan tahay in la cadeeyo sababta loo xiray wasaaradda amniga gudaha marka waxay leedahay qofkan waxa uu ku xadgudbay shuruudihii deganaashaha ee green card-ka uu haystay sidaas darteed in ay hadda xiran tahay waa dooq iyadu ay sameysay marka iskeed ay isku masaafurin kartaa marka arintan waxaan uga gol leeyahay dadka Soomaalida ah oo intay iska baxaan 6 bilood ka badan iska maqnaanayo leeyahin green card ayaan haystaa intii aan rabo ayaan maqnaan karaa green card-ka waa laga cishan karaa waana lagu masaafurin karaa inta maxkamad lagula tiigsado maxaa yeelay green card waxa loogu talagalay waa deganaasho rasmi ah qofku wadanka inuu ku joogo hadii uu baxayana 3 bilood ilaa 6 bilood uu wadanka ka maqnaado ama bil ama 2 bil hadba adigu intii aad doonto marka haweeneydan waa ayeeyo waliba 59 jir ah waligeedna dambi ma aysan gelin waxa waa canshuur bixiye waana macallimad haddana marka waa ay xiran tahay oo xabsi ayay ku jirtaa sidaas ayaa qareenkeeda iyo caruurteeda ay warbaahinta ay la wadaageen dhinaca green card-ka hadii aan eego waxaan ogeyn dawladdu inay amar soo rogtay la yiraahdo public charge oo ah dadka ku tiirsan dawladdu kaalmooyinka ay bixiso amaba barnaamijyada kala duwan ee dadka lagu caawiyo ayaa waxa hadda ay soo saartay amar kala duwan waxa ay dadka hadda kadib green card-ka codsanaya baaritaano dheeraad ah ayaa lagu sameyn doonaa waxaana la kala ogaan doonaa qofkan ma qof si shakhsiyana ugu tiirsan dawladda mise waa qof madax bannaan marka public charge waxa uu yahay qofka dawladda kaar caafimaad ka qaata kaar cunto ka qaata ama guri kira dawladdu qayb ay ka bixiso degan in hadda kadib la eegi
doono. laakiin arintan ma qabanayso dadka qaxootiga iyo dadka magangeliyadoonka, laakiin waxay qabanaysaa dadka lamaanaha, caruurtooda iyo waalidiinta iyaguna muwaadiniin ah ama caruurtooda hadda kadib keenaya. marka waxaa dowladdu ay sheegtay in ilaa iyo 5 qodob ay fiirinayso marka qofka green cardka uu soo codsado foomka la yiraahdo I-485 oo hadda dowladdu foom cusub ay soo saartay bisha soo socotay September 18keedana uu dhaqan galayo. marka dowladdu waxay leedahay marka uu qofku green cardka uu soo codsado, saraakiisha immigrationku waxay xaq u leeyihiin in ay fiiriyaan qofkan muwaadinka Mareykanka ah, ilmaha uu dhalay, iyo sidoo kale hadiiba xitaa qof ehelkiisa uu dowladda caawinaad ka qaato. qofka soo codsaday ma aha yaa qofka soo codsaday haddii uusan dowladda waxba ka qaadan, xitaa qaraabadiisa iyo dadka u dhow ayaa la eegayaa dowladda wax kaalmaha ma ka qaataan. sheekadan waa sheeko la yaab leh. sidaas darteed 5 qodob oo dowladdu ay eegayso la qiimeynayo oo saraakiisha immigrationka ay qiimeynayaan waxa kamid ah marka qofku uu soo codsado, da'diisa ayaa la fiirinaya. macnaha qof aan shaqayn karin miya mise qofkan kulay ma aysan sheegin da'du inta ay tahay. caafimaadkiisa ayaa la fiirinaya, qofkan maxaalada caafimaad oo joogto ah ayuu qabaa, waa sidee. waxaa la fiirinaya waxbarashadiisa, heerkiisa waxbarashadu intay gaarsiisan tahay. xirfadiisa ayaa la fiirinaya iyo sidoo kale ahaan financial ayaa la fiirinaya, qofkan dhaqaale ahaan muxuu haysta. marka dadka marka ay yimaadaanba wadanka isla markiiba in dowladda caawinaad weydiisan jiray oo aan shaqaynayn oo shaqo aan aadaynin, hadda kadib green cardka inay helaan waa ay adkaanaysaa. marka dowladdu waxa ay sheegtay in arintan ay tahay in public charge kan uu yahay mid aan la aqbali karin dadka caawinaadda dowladda ku tiirsan oo iyagu aan madax banaanayn. arintaasina sidoo kale waa arin kale oo muhiima oo dadku loo baahan yahay inay eegaan. marka qodobada inta dadka la aqbalayo oo green cardka aan la siinayn iyo sidoo kale kuwa la aqbalayo waa kuwan halkan ay soo saaray, aad ayay u fara badan yihiin. marka qodobada ugu muhiimsan ayaan hadda ka soo qaatay, halkaasi ayaad ka akhrisan kartaa. sidoo kale waxaa jirta shalay garsoore federaal ah oo fariisata New York oo magaceeda la yiraahdo Jeanette Fargas ayaa waxay gabi ahaanba meesha ka saartay amalkii horaantii bishii January maamulka madaxweyne Trump uu ku soo rogay dadka ka imaanaya 75 wadan in viisayaashooda aan la process gareyn karin. garsoorahan marka waxay tiri arintaasi gabi ahaanba waa sharci darro, waxayna sidoo kale awoodii ka xayuubisay wasiirkii arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio. waxay sheegtay sharciga federaalka ee immigrationka marka la eego National Immigration Act in qofka halka uu ka yimid iyadoo lagu salaynayo in visa loogu diido iyadoo aan wax sababa loo haynin. arintaasi waxay ku tilmaantay mid gabi ahaanba sharci darro ah. 75 wadan Afrikaan ayay u badnaayeen, Latin America ayaa ku jirta, waxaana sidoo kale ku jiray wadamada qaaradda Asia intooda badan. marka waxay tiri in qunsuliyadda process gareynta viisayaashii ay process gareynaysay in meesha laga saaro iyadoo aan wax sal iyo raada aan loo haynin. arintaasi waxay ku tilmaantay gabi ahaanba mid sharci darro ah. markii hore ma aysan ku jirin dadka dalxiisayaasha iyo ardayda dadka viisayaasha ku imaanaya, laakiin hadda kadib dadka isku dacwoonayay, lamaanaha isqaba, dadka caruurtooda u dacwoonayay in maxkamaddu amarkaasi ayay soo saartay. laakiin maamulka Trump ayay ka go'daa inay aqbalaan iyo in kale. waxaan ognahay horey kiisas fara badan oo maxkamada ah oo looga soo horjeestay maamulka Trump inuusan u hoggaansamin oo kii qaxootiga uu ka mid ahaa. marka hadda garsooruhu amarkaasi ay maalnimadii shalay oo Jimco ahayd ay soo saartay. ugu dambeyntii maamulka madaxweyne Trump waxay wadaan masaafurinta dadka sharci la'aanta ah. marka wadamo waxaa jiray diiday inay dadkooda loo soo celinayo ay aqbalaan. Mareykanku marka waxa uu heshiis la galay wadan saddexaad oo wadamo kale oo aad u fara badan oo dad aan u dhalan wadankooda la geynayo. arrintan hadda waxay ka dhacday Liberia ayaa waxaa loo masaafuriyay toddobaadkii hadda dhamaaday 20 qof. 20kaasi qof markii ay ka dageen Monrovia caasimadda Liberia, 15 kamid ah diyaaradii waa ay ka dageen, laakiin 5 kamid ah ayaa diiday inay diyaaradii ay ka dagaan. diyaaraddu waa tan idin muuqata oo aad arkaysaan dadka marka laga soo dejiyo in basas lagu qaado iyadoo la waardiyeynayo hoteelkaasi la geeyay oo xitaa hoteelka albaabkiisa ciidamo ay joogaan oo halkaasi lagu waardiyeynayo. marka 5tii qof ee diiday inay diyaaradda ka dagaan haddana waa la qaaday oo waxaa la geeyay magaalada Malabo ee wadanka Equatorial Guinea. waa ay diideen haddana in ay ka dagaan. xoog ayaa looga dejiyay marka dadkaasi diyaaradii markii ay diideen inay ka dagaan. 5taasi qof 3 kamid ah Kuuba ay ka yimaadeen, halka sidoo kalena hal qof oo nin ah uu ka yimid Brazil, haweeneyna waxay ka timid Cameroon. iyadoo waaba Afrikaano Afrika ayay joogtaa, laakiin dadkan ka yimid Kuuba iyo Brazil oo laga tuuray ka waran Equatorial Guinea. waxaa jira sidoo kale wadanka kale ee Central African Republic in la geeyay dad fara badan oo iyaguna wadamada Latin America ka yimid sida Honduras, Colombia,
Colombia, Ecuador, wadamadaasi ka kala yimid isla markaana Serbia iyo ay ku jiraan iyo sidoo kalena wadamo kale oo dhowra. nin Eritrean ayaa ku jira oo xaaskiisa xitaa muwaadin Mareykan ay tahay oo canugu u joogo oo Maryland isaga laga qabtay isla markaana wadankaasi Central African Republic laga. marka dadkaasi ma haystaan xitaa wax dokumentiya haddii ay doonayaan inay wadankooda ay ku laabtaan. waxay noqonaysaa in safaaradahoodii ay tagaan la cadeeyo qofkan inuu wadankaas ka soo jeedo, markaasi kadib haddii xitaa waraaq go home la siiyo uu qofkaasi wadankiisii ku laabto. marka arrintan waxaa lagu tilmaamay mid aad bini'aadanimada uga baxsan in maamulka Trump dad wadan aysan afkooda aqoonin oo wax xiriir aysan la lahayn in loo masaafuriyo isla markaana waliba diyaaradii haddana xoog looga dejiyo markii ay diideen inay ka degaan. aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta, intaan mar kale kulmi doono. nabadgelyo.